komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland iyo saddexda xisbi qaran ayaa munaasabad si wanaagsan loo soo agaasimay ku kala saxeexday xeerka anshaxa iyo habdhaqanka kaasoo ay dhaqangelintiisu ku waajibayso dhammaan dhinacyada muddada lagu guda jiro doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. madashan xeerka anshaxa lagu kala saxeexday laguna daahfurayay dhaqangelintiisa ayaa ay soo qabanqaabisay dalada guud ee bulshada rayidka ee loo soo gaabiyo Sonsaf. ugu horeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dalada Sonsaf waxaanu ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay dhamaystirka xeerkan anshaxa doorashooyinka. waxaa farxad weyn oo ah ase Sonsaf anaga macnaha ururada bulshada rayidka inaan mar walba qayb ka ahaano oo aanu garab taagnaano saddexda xisbi qaran iyo commissionkaba sidii ay doorashadu si habsamayn ugu socon lahayd. kolley waa ka warqabtaano maanta waxaa jira xanuunkii COVID-19 oo isaga laftiisu u baahan maadaama saddexda xisbi qaran iyo commissionkiiba ay joogaan in doorashadiina ay ka hadhay muddo ka yar 60 habeen in iyada lafteeda siyaasad aynu ka yeelano. annagu waanu facilitate garan karaynaa waanaanu ka caawin karaynaa commissionka inaanu xeerka ama muxuu ahaa siyaasadda kala shaqeyna haddii ilaahay yidhaahdo. ugu dambeyntii waxaanu haddii aanu nahay ururada bulshada rayidka waxaanu maskaxda mar walba indhaha ku haynaa in haweenkii iyo beelihii gabayo laftooda muxuu ahaa saamigoodii iyo tiradoodii ay helaan haddii ilaahay yidhaahdo. dhankiisa isna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland Cabdirashiid Riyaraac waxaanu xusay muhiimadda uu xeerka anshaxa u leeyahay doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee la filayo inay ka qabsoomaan 31 bisha May ee sanad 2021 dalka. waxaynu u baahannahay inaynu dhamaanteen qalbiga u sheegno inaynu sidaa u isticmaalo oo ma garanaysaa aynu deegaaniska iyo wadada u dhiga raacno muhiimadaynu ka dardaarmaynaa waxa weeyaan haddii alla ka dhigo doorashadii waqti kooban bay nooga hadhay aad bay cidhiidhi u tahay annagana hawl badan baa noo taalla waa isdhinac wadnaayo waxaanu isleenahay insha allah waa waqtigeedii waa ka gaadhaysaan si fiican. fitinkii baan ku jiraa kala hoofidii golayaasha deegaanka 2 casho kadib haddii alla ka dhigo waxaan rajaynaynaa inaan idiin soo dirno wixii idinka mari waayey shacabka reer Somaliland dhammaantii waa saddexda xusbi baa maamula maadaama saddexda xusbi maamulaan ay dhammaantood saddex xusbi yihiin iyo ururada bulshada oo idin soo raaca waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa haddaanu commissionka nahay in nabadgelyada dadka aad loo faro in nabadgelyada leeno doorasho waa nabadgelyo marka inaynu aad iyo aad ugu dadaalo. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta ka socday xisbiyada Ucud Kulmiye iyo Wadani waxaanay si isku mid ah u soo dhaweeyeen inay ku dhaqmayaan xeerkan anshaxa ee doorashooyinka qaranka Somaliland waxaana mas'uuliyiinta hadaladoodii kamid ahaa. aad baan u bogaadinayaa qoladii soo diyaarisay hawshan waa very comprehensive meelaha qaarkood waxaad moodaa inay ku talax tageen oo ilaa yani si qofka damiimka wax loo fahamsiiyo aanay waxba ka tegin mid baa jirta dadku abuse gareeyo waa dhaqdhaqaaqa gudoomiye dhaqdhaqaaqa waxa dhaca status symbol bay noqotaa nimaan doorashadaba qareen u hayni oon meel laba ka soo gelin inuu helo warqadda dhaqdhaqaaqa ood moodo yani marka casuumadaha madaxweynaha la tagayo kale qof waliba kaar buu doonaa marka waxaad moodaa inay status symbol tahay maalinta gawarida la joojiyay inuu ninku dhaqdhaqaaq helo marka dadaan ehel u ahayn ayaa anu ilaa waxaan joogay tii hore ee markii aftidii dastuurka la qaadayay goobaha lagama shaqayn karo intaasoo qof baa isu weydaaranaysa marka intaas ka taxadirtaan inta kale aad iyo aad baan idinku hambaleynayaa waananu qaadan waananu saaxaynaa halkan waxaan anigoo ka wakiila xisbigayga waxaan ka damaanad qaadayaa in aan u qabsoomayno xeerkan oo aanu ogolaanay oo aanu qeexnay oo aanu naaqishnay sida Cabdiqaadir Shideed sheegayna waliba dee lagu talax tagay aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa Sonsaf iyo Nekba shaqada ay qabteen. heshiiska halkan lagu kala saxeexanayo xusbiyadu ay ku kala saxeexanayaan malaa siyaabo qalad baynu u fahamnee horta waxay qusaysaa xusbiyada uun bay qusaysaa xukuumaddu kuma jirto xukuumaddu waa inoo dheh waa xusbiyada oo kaliya waa kala saxeexanaya
arrinkii aw cabdilqaadir ka hadlayay ahaa dhaqdhaqaaqa aad baan uga helay runtii inay xusbiyada mucaaradkaa ka timaado heshiiskanna waan soo dhaweynaynaa heshiiskan wax badan oo aan isaga ku xidhnayn oo xusbiyada ku xidhan baa jira oo ah wada shaqaynta xusbiyada iyagay ka godaa inay diiwaangelinno horenu soo maray oo waxaan u malinayaa rag badan oo inagu cusub baa joogay waxyaabihii ina soo dhex maray aynu garanayno oo aan u fiicnayn xusbiyada iyo dhexdeennaba wixii nabadgelyo darre keenaya aanay inoo fiicnayn maanta dadkeennii baa tartamaya xusbiyadu ma tartamayaan maalin dhow waan iska ken celinaynaa laakiin imaka dadkeennii baa tartamaya sidaynu heshiiska iyo waxa kale ee aan ku jirinba aynu hirgelin lahayn xusbiyaday ka dhaxaysa warwar kama qabo anigu oo malihii idinkay waxaas idinka imanayaan aynu baallaha unu iska taagno